waxaan insha allah sii wadanaa qaybteeni game projectska marka projectyadeeni gamekan ku guda jirnaa hadda waxaan soo qaadanaa memory gamekeeni okay dheemada waad aragtay waxaan dhisaano waa inaan memory gamekeena dhisnaa kaadhiskaa samaynaa clicktaa gurnaa isku maaj garaynaa xuruuf iyadoo css ayaan halkan kuugu diyaariyey let's say bodygan iyo game boardkan waan haysanaa okay bodyga waa kan oo header one-kan iyo dhifkana ku jira dhifkanna waa game board kaliya okay so waa game boardkan iyo oo grade template anu isticmaalay kadibna aan 4 ka dhignay okay 4 cards as a grade baynu ka dhignay 4 ka halkan waayo waa inaynu mar walba grade isticmaalnaa si ay wixii flex bagas u noqoto oo aynu designkeeni responsive u ahaada okay so laazim markaa waxaan sameynayaa kaarkan gadaal baan kaa tusaya waayo javascriptiga ayaynu kaga daranaa so hadda waxaan sameynayaa script.js waxa la yidhaha script.js ogow game projectskaygan memory game ku dhex sameeyey folder ah kadibna index.html script.style.css saasoo dhan baanu sameeyey kadibna scriptigaygi baan halkan ku xidhayaa script ayaan odhanayaa say script.js halkanaan ku xidhay whatever haddaba halkanaan doonaya inaan ka samaysto waxa loo yaqaano game boardkayga halkanaan doonaya inuu ka dhaco okay so laazim markaan imaka ka rangareeyo live server aan ku rangareeyo okay javascriptigayga waa inaan haystaa so folderkeeni waan ku xidhnay so markaa waxaan doonaya inaan sameeyo xuruuftii okay game board waan haystaa let's say haddaba xuruuf baan soo qaadanaya aan sameynayaa so const waxaan soo qaadanayaa waxa loo yaqaano cards so ereyadii baan doonaya inaan sameeyo erey baan ka dhigayaa each one xaraf baan ka dhigayaa each one laba waayo wax isku maajgaraynanaa labadii isku mida markaynu clicktaa hayno okay so let's say c dheh haddana halkan c baan soo qaadanayaa let's say d baan odhanayaa waayo waa each xarafkiiba waa laba guys d markaan idhaahdo e ba dheh haddana waxaan soo qaadanaya e let's say capital weeye haddana lazim f ba iga dheh wuxuu muhiim ahaa f ba ka soo qaad so ma aragtaa xuruuftii kasta labaan ka soo qaatay marka waa inaan isku maajgareeyaa goordhow okay waa inaan isku maajgareeyaa kadibna aan eegaa inta kaadhaan rogay let's say flipid cards flipid waxaan soo qaadanayaa flipid marka hore guys aad buu complicated u yahay marka dambe laakiin aad ku celceliso waad fahmaysaa so haddana waxaan soo qaadanayaa variable let baan ka dhigayaa waayo waxaan goldo value gu isbedelayaa flipid cardiska laftiisa let baan ka dhigayaa let variable waxaan ku declare garaynayaa let keywordka let si aan goldo value gu bedbedelo so halkan waxaan soo qaadanayaa magic berries wax loo yaqaano okay so magic berrieska waan count garaynanaa okay laakiin zero buu hadda yahay goldo wuu isbedelayaa so marka waxaan isticmaalayaa function baan soo qaadanayaa la yidhaahdo let's say function create board loo yaqaan functionkaas halkan oo dhan baan ku samaynana okay so laazimka waa inaan infogareeyaa sababtoo dhan functionkayga wax walba isaa qabanaya functionkani isagaa kaarhka samaynaya clickta isagay ku daranaa isagay isku maaj garaynaa goordhow waxaan oo dhan insha allah laakiin functionno badan baa isticmaalanaa so markaa horta waxaan doonayaa inaan sameeyo game board wax la yidhaahdo si let's have a game board baan sameynaya game boardkayga si aan u display gareeyo waxaa loo yaqaano ereyadan keywordskan okay si aan u screenka goordhowna aan iskugu daro styleka kaarhkaygan so ay kaarhkan waxaan waa element bayn ku sameynanaa laakiin laazim document baan leeyahay dot bale get element by id marka waxaan soo qaadanayaa game boardkayga ferastiga okay so let's say game boardka id waa kan let's have game board waan haystaa so game boardkayganow waxaan ku darayaa wuxuu noqonayaa intaynaa horta game boardkan u tegin waxaan sameynayaa inaan shafal gareeyaan isku dayaa bal ereyadan randomly mid kasta so function baan sameynayaa loo yaqaano shuffle okay shuffle marka functionkani parameter buu leeyahay oo araya guys marka waxaan isku dardarno oo mid kasta ay isku geyno ayaad fahmaysaa kan waxaan u isticmaalnaa wax loo yaqaano Fisher Yates algorithm marka hore waa complicated aad inaad fahmin ayaan rajaynayaa marka hore laakiin markaad ku celceliso waad fahmaysaa mid kasta goordhow kan waxaan u isticmaalnaa for loop wixii loo yaqaanay
okay kan waxaan isticmaalanaa wixii loo yaqaanay for loop sababtoo dheh waxaan loop garaynaynaa characteriskan okay so goordhow characteriskaasaan u display garayno each one waa inaan loop garaynaa waayo for loop aynu isticmaalanaa for I baan odhanayaa let's say let baan leeyahay I waa initial garaynayaa marka hore I sequel baan odhanayaa whatever parameterkaygu uu lengthkiisu yahay lengthkiisu yahay kadibna laga jaray mar okay mid laga jaray so I is greater than baan odhanayaa whatever always way ka weyn tahay zero so haddaba waxaan soo isticmaalayaa decrement wax loo yaqaano let's say I minus minus baan isticmaalayaa okay so intaa markaan haysto haddaba waxaan eegayaa one dice garaynayaa let's say each one baan odhanayaa let's have a j characterka j ii soo qaad math floorkeeni waynu soo aragnay let's say math floor waxaynu isticmaalnay math floorka waan aragnay guys soo maaha haddayna arag tusaale yar baa kaa siinaya sad u fahanto randomkaa soo qaadanayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa let's say into baan leeyahay so whatever ayga aan haystay oo loo geeyay hal sababtoo goordhow fahmi doonta imika haddaan halka soo qaato let's say console.log baan leeyahay let's say console.log imika math floor haddaan soo qaato math floor haddaan soo qaato oo idhaahdo 6 intanoo lambar maxay kula tahay halka waxaa dhacaya wax kasta oo decimalka samayso math floorku wuxuu ku celiyaa 6 intan dambe oo dhan buu jarayaa okay si lasaaf si 6 wad haysataa haddaba randomkana haddaad imika aragto oo tiraa let's say imika a is equal baan leeyahay so math.floor let's say math.floor waxaa kasoo qaadaya let's say math.random imika haddaan imika man random yidhaahdo aan haddana ku dhufto let's say 2 ba dheh maxay kula tahay si imika kan haddaan imika aan consolekan aan maxaa la yidhaahdaa tuuro so laazim halkan waxaan doonayaa inaan haysto let's say mass randomki waan haystaa so into 2 baa waan kasoo qaaday okay so laazim halkan waa inaan idhaahdaa random okay let's say halkan bal 2 ba ka dhig okay 2 halkan haddaan geliyo marka see waa inaan console gareeyaa marka hore console.log a baan odhanayaa see waxaan soo qaadanayaa into 2 ba dhe see waxaan arkanaa eg 0 waan haystaa 1 wuu isbedelayaa automatically 0 yon buu isbedelayaa laakiinse waa 2 halkani laakiinse haddaan idhaa plus 1 ba dhe halkan imika plus 1 ba ka soo qaad so laazim waa inaan helaa maxaa la yidhaahdaa way let's say into 2 halkana times 2 ba dhe ama 3 ba dhe whatever halkan so let's say way isbedbedelaya xarfu laakiinse eg halkan ka jaro inuu dhaiskareeyo weeyaan mar walba okay so laazim eg xaruftu way isbedelaysaa so marka whatever aan halkan soo qaato let's say into ama kaba soo qaad xarafkaa doonto geli 5 haddaan yidhaahdo let's say plus 5 ba dheh plus 5 not plus 5 maths random 3 halkaan 3 ama 4 gashado si waxaan haystaa arkana 0 keliyaad ugu celcelinayaa laakiinse mar walba haddaad doonayso inaad dhaaskarayso waa inaad lambar ku eegtaa so laazim halkan aan 4 ku celiyey lambarkii laakiin mid keliya kuu iman maayo laakiinse waxaa imanaya maxaa la yidhahdaa ilaa iyo 4 ku gaadhay 2 1 1 0 2 intaa inaad fahantaan mara waa dhizing baa loo isticmaalaa macnii eg inagu xuruufan haysanaa wixii baynu doonaynaa inaynu xuruuftii aynaa midna mid laaj garoobin oo maaj garoobin oo kolba mid ka duwankii inoo imaado so laakiinse intaynu haysana valuega aan ku baasgareynay noqonaysaa whatever aan ayga ku baasgareeyo areygan goordhow ayaan doonaya randomly inaan math floor ku baasgareeyo oo ayna isu maaj garayn maxaa la yidhahdaa valuega aan haysanay
so bal intaa markaan ka imaado tusaalaha yar lesay kalkana cut leeyahay so waxaan soo qaadanayaa lesay halkana waxaan soo qaadanayaa array baan soo qaadanaya so barometerkayga array buu ahaa so waxaan ku baaskaraynayaa array kale oo loo yaqaano maxaa la yidhahdaa whatever aan haystay I valuegaygii so kadana arraygii baan soo qaadanayaa whatever j valuegii soo baxay okay so equal to baan leeyahay haddana waxa soo baxaya array kale arraygaa kale muxuu leeyahay waa j oo loo haddana ah array oo haddana ah I okay so saasaan isugu baasgaraynaya guys so laazim intaa haddaad ila fahanto mar walba si kan waa la save kana kadkaraynayaa kana waan kadkaraynayaa halkan array ku weeyaan okay si hab inuu sidaa yahay kana waa ka jarayaa si atindaasi kana waa ka jarayaa sababtoo dhan mar walba arrayga waan haystaa halkan array baan haystaa arrayga waan ku baaskareeyay haddana array baan ku baaskareeyay let's say something halkan ayna wax ka qaldan yihiin so laazim waayo halkan waxaan haystaa so laazimkan inuu xidhmo kana ma haysto let's say kana kadkaree so something halkan aynu meel wax ka qaladnay character baynu ka tagnay guys whatever halkana arraygiisa okay kan waa inaan iska bahleeyo si eeg mar kale aan ku celinaya guys intan iisoo qaad cut baan leeyahay intaa markaan kadkareeyo so laazim waxaan leeyahay array waayo barometerkaygii baa ahdee sax I baan leeyahay haddaan coma soo qaatay array haddana array kalaan soo qaatay j baan soo qaadanaya so laazim intanaan haddana leekeysiinayaa semas oo intanoo haddana rifeesa array oo waxaan soo qaadanayaa j ah let's say j valuegayga j whatever soo baxay haddana array baan soo qaatay haddana I whatever I valuegi ah intaa markaan helo haddana waxaan return garaynayaa return arraygayga barometerkayga wuxuu noqdo okay fisheriyatiska waad search garayn guys wuxuu soo baxayo intan markaad baaskarayso haddaad doonto chat gpt ba ku dhufso okay so intan waad yara fahmaysaa goordhow marka aynu waxaan xaggan ku baaskarayno valueskan iyo markaynu consoleka la isticmaalo gameboardkan aynu eegi doonaa markaa so marka intaa markaan isticmaalo waxaan odhanayaa let's say hadda waxaan soo qaadanayaa let's say value baan odhanayaa let's say shuffle cards baan idhi shuffle cards okay shuffle cardskaasi muxuu yahay functionkaygii shuffleka waan soo qaatay let's say okay shuffle functionkaygii baan soo qaatay kadibna waxaan ku baaskaraynayaa cardskaygii kadibna waxaan doonayaa inaan spread operator isticmaalo whatever cardiskaan haysto spread operator baan isticmaalaya guys sababtoo dhe valueska halkan ku jiraan doonaya iyo valueska dambe gadaal kaga darayo inaan spread operator la yidhaha kan spread operator baa loo yaqaana oo tusaalayaal wayn ka aragnaa jeclahay hore so iminka console.log haddaan idhaahdo shuffle cardiskaygan waxba ma haysto laazim shuffle cardiski ma haysto sababtoo dhee maxaa la yidhaha shuffle cardis iminka halkan eg shuffle cardiskaygu waa undefined c undefined a undefined a b c e langasku wuu ku siinayaa 12 ya laazim waa 12 haddaad tiriso laakiinse caadi uma baaskaraynin oo sababtoo dhan maba haystaba okay so marka waxaan doonayaa ayar inaan markaan doonayo inaan shuffle cardiskaygan for each baan doonaya inaan loop gareeyo so let's say shuffle cardiskan aan doonaya for each loop inaan ku daro for each loop baan doonaya inaan ku daro so for eachkaas muxuu haystaa waa card iyo indexkiisa okay so intaasaan doonaya inaan ku daro oo la yidhaahdo whatever intaa aan haysto so laazim kan waa inaan ku baaskareeyo open bracket iyo closing bracket labadooda waa inaan ku baaskareeyo so intaasaan doonaya inaan soo qaato waa each one card buu leeyahay mid kastana indexkiisa way kala horeeyaan wax index number baa la yidhaha programku leeyahay so mid kasta index baynu doonaa ku baaskarayno goordhow indexkani isagu faahfaahsan baynu gadaal baynu kasii baraanaa marka front end iyo back end ka gaadhno applicationada markaynu qorino
haddaba waxaan soo qaadanayaa waxa la yidhaahdo card element variable i declare galee baan idhi card element. marka waa in halkan doonaya inaan ka samaystaa waa halkan document dot create elementigii baan soo qaadanaya dot create. okay, waxaan doonaya inaan sameeyo dhif baan doonaya inaan samaysto. so card elementigana haddaba maxaa tahay card elementigan imaka haddaan idhaha clg aan tab yidhaahdo lasay card elementi aan soo qaato lasay card elementigii like si dhif weeyaan si dhifkani laakiinse wuxuu laba jibaarmay imise jeer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 macni inta xuruufa halkan ayuu kaarkaasi laba jibaarmayaa. so imika waayo each one card elementiga waan haystaa oo dhifkii waan haystaa. markaasaan doonaya inaan haddaba ku darsado maxaa la yidhahdaa classkaygan stylekan aan doonaya ku daro. stylekan waxaan doonaya inaan ugu daro waxaan soo qaadanayaa lase card elementigii si card element waayo markaad gadaal wixii midmid isugu geyso class list art baan leeyahay. so waxaan odhanayaa card buu ahaa. okay, so imika card markaasaa ugu daro laazim each one kii black scriptigaygii card baan haystaa classkiisuna waa card. so laazim kan ayr baan doonaya inaan class list art card baan idhi. so haddana waxaan soo qaadanayaa lasay card element wax dataset la yidhaha baa jira. okay, dataset waayo datasetka waxaad ku baaskaraynaysaa valueskii. okay, valuegii whatever uu ahaa baan odhanayaa sequal baan odhanayaa lasay sequal parameterkaygu waa card. si eg hadda scriptiga waan haynaa refresh markaan idhaahdo si card baan haystaa laakiin wax value ma laha datasetkan aan doonayna each one ku value gureeyo dot value baa halkan u isticmaalayaa lasay dot valuegii wuxuu noqonayaa card. so laazim eg card baan haystaa data value undefined wax noocaas soo qoranaya laakiin qaar buu soo qoraya a mid kasta wuxuu soo qoranayaa qaar buu soo qoraya c waa undefined kani waa valuegus a c b e wax noocaas soo qoraya laazim eg goordha waad iska fahmaysaa. so haddana waxaa soo noqonayaa indexka waxaa soo qaadanaya data value dot indexkiisa wuxuu noqonayaa lasay index badhe waayo indexka waan haysanaa. so each one index number buu leeyahay waa way kala duwanaanayaan. si hadda maxaad ku aragtaa 1 2 3 4 5 indexkiisu wakaan each number buu ka bilaabayaa se u kala horeeyaan waayo midba midka ka horeeyo ayuu lambarka siinayaa 0 kasoo bilaaw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaa saa darteed hadda markaa waxaan doonayaa imika haddaan imika idhaahdo let's have a game board baan idhi game boardkii waan haystaa dot manley aben child haddaan soo qaato aben lase aben childkaygii haddaan soo qaato whatever card elementigaygii aan idhaahdo so lase waxa aan haysanayn eegana see guys mid kasta waan haystaa waxba klika ha ku darsanin hadda click ma haysano. markaad doonayso inaad display gareeyo cardskaygii waa kan gridkii waa kan imika uu ku darsamay si hadda imika stylekiini waa ka hadli karanaa display grid baan idhi waayo game boardkaygii dhif baan haystaa let's have here game board baan haystaa game boardow waxaan idhi grid 4 baan idhi haddaan 5 idhaahdo 5 u tegaya gaabkiina 10 baan u dhexaysiiyey. imika haddaan intan bal idhaahdo let's say 10 pixel badhe see that's gonna be too much space waxaasoo space uma baahni 10 pixel baan idhi marginkana top baan idhi 20 pixela kaarhkaygii waa widsku waa 100 haddaan imika 200 halkan idhaahdo si valuegiisiisu bedelay arag. so markaa 100 baan ka dhigay heightkiisana 100 baan ka dhigay lasay background colorkana waxaan ka dhigay bluega haddaad soonayso waad ka bedeli kartaa still laakiinse waxaa ku daynaya kaygii hore